gogasha madax dhaqameedka reer Somaliland ee isxilqaamay ay u dhigeen beelaha walaalaha ah ee reer Awdal iyo reer Selen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dhammaan bulshada reer Somaliland gaar ahaan gobolka Awdal iyo caasimadiisa Boorame waxaan ugu baaqayaa nabad, xasilooni iyo isku duubni ummadeed. madaxweyne ahaan waxaan diyaar u ahay wax kasta oo dhiigga dadkaygu ku baaqanayo, wax kasta oo ummadaydu ku heshiinayso, iyo wax kasta oo qarannimada Somaliland iyo dadkayga dan u ah. maanta waxaan madaxweyne ahaan joojiyey munaasabadda xuska xeer ciise anigoo ka eegaya danta guud iyo dareenka ummadayda, annaga oo u dhegan nugul wax kasta oo maslaxad guud ee ummadda ku xidhan tahay, iyo inaan dhaawac iyo murkucasho soo gaadhin wada noolaashiyaha dadka walaalaha ah ee reer Somaliland. waxaan faraya ciidamada kala duwan ee nabadgelyada in la adkeeyo amniga, khasaare dambana aanu dhicin. shacbigana waxaan ugu baaqayaa inay dareenkooda xakameeyaan. maantana wax kasta waxa iga muhiimsan nolosha ummadayda. ugu dambayn waxaan ayiidayaa oo aan adkaynayaa gogasha madax dhaqameedka reer Somaliland ee isxilqaamay ay u dhigeen beelaha walaalaha ah ee reer Awdal iyo reer Selen. ciidamada nabadda ha sugaan dhammaanba dadka reer Somaliland, gacmaha ha isu qabsadeen in la saxo wax kasta oo inaga khaldamaya. waxaana ku kalsoonahay in dadkaygu ka heshiin doono wixii la isku maandhaafay. walaalayaal, inagoo danta guud eegayna ha la istajiyo, nabadgelyada ha la ilaaliyo, danta guud ha laga shaqeeyo, xasiloonida ha la ilaaliyo. nolosha dadka ayaa wax kasta inooga qaalisan.